haddaadan hadda ka taxadirna maskaxdaada aa ku xirin miisaanka inta aa ku jirtid berita dhibaatada kugu dhacaysa noocan oo kale ka mid ah waxaa sababsanaysaa in qaliin lagugu sameeyo oo jirkaagii la jarjaro oo la daadiyo taas waa mid marka video waxaan jeclahay in waxyaabo aad iyo aad u badan aad ka heli doontiin oo faa'iido ah intaysan kugu dhicin dhibaatadaas marka hore ka digtoonaa iska jir insha Allah videogan dhamaysta bilow ilaa iyo dhamaad iyo fruitiska ay soo weydiiseen fruitiyada miisaanka lagu dhimo iyo fruitiyada kale insha Allah asagana waa idin sheegi doonaa doo ilaahay idmo videoga dhamaadkiisa ku soo qaadana asagana doo ilaahay idmo ama dhaxdiisa meesha noqoto insha Allah marka sidee uga hortagi kartaa jirka noocan oo kala noqonayo oo balaq ama garbaha ahaato ama caloosha ahaato haddii aadan hadda ka taxadirin berito way kugu imaanaysaa in aad qaliin sababsato ama inaa nolosha dhan aan nacdo oo aad dhahdo maxaa isku soo caateeyay maxaa markayga hore aan miisaanka u soo dhimay insha Allah siyaabaha ay ku imaadaan iyo waxyaabaha looga hortagi doono video ku daawada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalay qaaliga kusoo dhawaada channelkayga Munees walba adduunka joogtaan inay ugu caafimaad qabtaan rajeena fadlan haddii ay tahay markuu gorisa channelkayga soo booqanayso waxaa kaa codsanaya inaad subscribe ii saarto gambaleelkana aad furato si video walba aan soo geliyo oo kugu soo dhaco maba aa u noqoto daawadaha ugu horeeya waana mahadsantihiin dhammaantiin walaalaha gadaal channelkayga oo kasoo biiray iyo walaalihii hore ila joogi jiray jazakumullahu khayran sida wanaagsan mar walba ila socotaan kommentiyadiina dacooyinka iyo dhiirigelinta isugu jiro waa ku mahadsantihiin waa mahadsantihiin inaa idin dhaana marnaba kama daali doono maasha Allah tabaarakallah walaalihii qaaliga in muddo horta kala maqneen 3 maalin YouTube kama soo galin walaalaha channelkayga ku xiran waa arkay badankooda su'aalo aad iyo aad u badan mar walba la soo weydiiyaa karaal noqday asxaabe marka maanta waxaa jeclaystay insha Allah taala in aan idin sharxo waxa ugu muhiimsan horta marka aan miisaanka aad dhimaysid miisaanka iska dhille ma ahan saa hore idinku soo sheegay haddii marka hore maskaxdaada aad ku xirin miisaanka aad iska ridi kara moogi asaga horta awalan ma ka dhacayo taasina maskaxdaada gelisid waaye dad waxaa jirta aaminsan in shay la cabaay jiro oo caloosha jaraayo shay la cabaay jiro oo jirka adkeenayo haddii balaq oo ku noqdo kaleento garbaha kaleento gabdho badan isoo weydiinaa jira garbaha sidee loo adkeeyaa garbaha balaq sidee loo adkeeyaa caloosha sidee loo adkeeyaa caloosha sidee loo jaraa gabdhahay waa arkay qofkii ku dhaho shaygaas cunaysa caloosha ku jar ama caloosha ku adkeey ama jirkaaga bajaq yacni amaba muxuu ahaye markii muxuu ahaye miisaanka dhintay markuu isku dhex daadaatay oo harag iyo maqaar iyo waxaas oo kala noqdo qofka ku dhaho daawadan ama cuntadana lagu adkeeyaa qofka ku dhaho qofkaas been uu kuu sheegay marka taas inaa maskaxdaada aa ku xirtidaa loo baahan yahay mar walbana waa kasoo hadlaa haddii aa video ahaan uga soo hadlaayo haddii aan muxuu ahaye idinkaga soo jawaabayo marka aa fariin ahaan ay ugu soo qortiin qaybta commentiga oo kaleento aa idinkaga soo jawaabayo maanta videogan muhiim oo ku yahay dhagaha kala fur iyo waxaa idin sheegi doonaa dad badan oo fruitiska isoo weydiiyaa jiraa fruitiska muxuu dhibaa fruits badan haddii aa cuno fruitska yani mooska iyo tufaaxa iyo canabkii waxaas yani kuwaas aa lahaa fruitiska maxay dhibayaan insha Allah waxaa idin sharxi doonaa ayadana fruitiska loogu talagalay in horta lagu jaro miisaanka oo waxba aa kaa dhibaynin yani haddii aa cuntid oo faadkiisana oo yaryahay ooba lahayn waxaa rabaa yani sukortiisa ay yar tahay fruitkaasaa rabaa insha Allah asagana inaa idin sharxo aa idin sheego fruityada ay kala yihiin tan kale oo soo hartay waxay tahay haddii muxuu ahaye aad samaysid igaraan noqdo walaalay qaaliga koola ay soo galay haddii adiga aad ku fikiraysid awalan miisaanka iska rid kadib raadi wax jirkaaga markaas isku soo aruurinayo amaba adkeenayo amaba markii jirka oo muxuu ahaye faadki iyo wixii dhan oo ka baxo jirka marka waa weyneyd matalan dadka waxa ugu daran oo zaid miisaankooda uu badan yahay 100 kiilo ahayd 60 kiilo iska dhigtay maxaa meeshaas ka baxay 40 kiilo ka baxday 40 kiilo markii jirkaaga oo ka baxay marka caylantay jirkaaga uu iseystaa uu buuxaa laakiin markii aa caatoodid oo miisaanka aa ridid jirkaaga uu isku dhaxdhacaa wax isku dhaxdhaco noqonaa way fahanteen amalena jirkaaga wuxuu noqonaa wax isku dhaxdhacay asaga dhan wuxuu noqonaa maqaar iyo balaq hilib laalaada iyo waxaas calooshii oo kaleento way isku dhaxdhacaysaa ayadan midaas haddii adiga ay kugu jirto awalan miisaanka iska dhin
oo yani wax jimicsi waxna sameynin wax walbo miisaanka lagu dhimaa yani sidaa rabtid adoo dhin ama muxuu ahaye dhankaa rabtid soo raac yani weeye badanaa jirta oo miisaanka lagu dhimaa ayadoo la dhimaa yani xagga cuntada ka wadaa cuntada noocaa rabtid markaas isticmaal miisaanka markii aad dhintay kadib haddii ay kugu jirto miisaanka waa dhintay hadda jirkaagii adkay hadday kugu jirto jirkaas lagama yaabo inuu horta ku adkaado ma ka sugaysid dhibaato aad iyo aad u badan waxaa is leedahay yani maxaa ii geeyay yani oo jirkayga marka horeba yani u caateeyay ama muxuu miisaankayga u riday aad ka imaanaysaa haddii aadan sameynin wixii hore usoo sheegay oo mar walbana fiidiyoyada kusoo sheego haddii mar miisaan dhimaysid waa in marka ugu horeysa adiga bilaabaysa jimicsiga la bilowdaa ma ahan miisaanka dhimaa kadib jimicsi sameyna jirkayga adkeena midaas maskaxdaada inaad ka bixisid waay haddii aad samaysidna taas waxay qaadanaysaa in sida hadda sawiradan idin soo qaato kaleento in qaliin martid oo wixii markaas hargahii iyo muxuu ahaay iyo maqaarkii iyo jirkii iyo wixii balqbalq ahaa in aad iska jirtid hilibkaas oo dhan aad bixisid oo la daadiyo taas ay noqonaysaa yani markaas haddii marka horeba jimicsiga kusoo lifaaqin marka iscaateynta sameynaysay oo isdhahaysay markaa caatoodid kadib oo miisaankaa dhaco kadib jirkaaga soo adkay haddii aad dhahdid waxaa sababsanaysaa in aad qaliin martid sida hadda sawiradan meesha idinkaga muuqdaa ujeediin qofkan saa ujeediin markiisa hore saasoo ahaa markuu iscaatay soo noqday fiir bal calooshi see u taaladay shukumaan miyaa leedahay yani halka muxuu ahaay laalaab yani waa la laalaabi karaa dhar camal uu noqday marka waxay kugu qaadanaysaa inaa camaliye samaysid yani haddii Soomaalinan in run laysku sheegaa fiican yani qarashkaas meeno inkastoo anaga aan jeclan horta inaa qalin jirkeena ku sameyno teeda kale waa lacag waaye lacag fooq العقل waa maahan qalin yar meel laga qalaayo maahan jirkaaga la qurxinaa oo la nadiifinaa camaliyada tajmiil lahaa عملية تجميل الله أما عملية قرحنته قف كان جركي سال قرحنا سدو يهدو جيدا قف بين عادنا مجرى هذا قال هذا أنا وقتهين يعني حليد السمرة أما الدباشة دي هذا يعني وإسقابنا يا وحيرة هوسي يكر بسك حنا أنت كلو يقاون تهاي مرك قف كان نوع عنو كلا أنت مكو دبالن كرا شعبك مصور حق الكرا بدوينا مصور حق الكرا ومية أصاع عقدة سكسيق هذا سوما مرك وحايدين kula talina dadka miisaanka dhimaayo ama wiilaha ahaadaan ama gabdhaha ahaadaan qaasatan gabdhaha la hadlaa waxaa fiican marka miisaan dhimista bilaabaysa inaad jimicsigaaga la wadid waxaa jira jimicsiyo caloosha loogu talagalay youtube-ka dakras waa helaysaa muxuu ahaye abka waa laga soo degsadaa ayagoo muxuu ahaye lasoo degsanayo way jirtaa mobilkaaga ku kaydsanaysid aad fiirsanaysid hababka loo jarayo caloosha garbaha kuu soo heray garbaha haddii aad jim aadi kartid ama 6 kiilo inaad guriga soo gadatid aad isticmaashid kor saan aad dhigaysid amaba saan oo kale tan saan la dhahay oo gacmaha la isku keenayo oo kaleento ayadan way adkaysaa garbaha push up oo kaleento wuu adkeeyaa intaas oo dhan way adkeeyaan caloosha ku soo hirta ayadana haddii aad karaas youtube-ka waa helaysaa boqolaal yani oo kala nooca option oo lagu yareenaya jirta caloosha kuwaas oo isticmaalaysaa laakiinse awalan waa inaad isla bilowda cuntadaadi aad bedeshay iyo jimicsiga mar walbana waa idin sheeg cunto kaligeeda wax ma caateynaysa jimicsi kaligiisana wax ma caateynayo waa inaad iswada raacisaa hadduu ilaahay idmo jalkayga haddaa ku cusub tahay hore u gal waa ka arki doontiin insha allah dadka hore ila socdayne wayba arkayaan cuntooyinka markaas miisaanka lagu dhimaayo ayagoo nooc insha allah ka daawada haddii aa ku cusub tahay haddaa hore ila socotayna oo hore ila joogtayna taas maba kuu sheegaya soomaan marka waa taas mid haddii lagu dhaho kareenkaan yarana kareemada waa musaacid waay kareen waa soo sameeya caloosha aad marinaysa caloosha markaa marisid bacaa ku xiraysa jimicsigaa la sameynaysaa calooshaada way isdhuuqsanaya wixii way isdhuuqsanayaan oo adoon dareemin miisaankaagan wuu dhacaa jirkin wuu isu soo dhuuqsanaa laakiin haddii aad dhahdid bas cuntadii aa iska jaray jimicsiga gadaalaa ka dhiganaa jirkaagii yani faadka oo ka baxay murqihii inay soo noolaadaan oo ay soo kuukuustaana la rabaa oo booski markaas oo cadiintii ay ka baxday muxuu ahaay jir dhisan oo noqdo laakiinse haddii markaas adiga wax borotiinaadna aa qaadanaynin borotiinaadka kuwa la qasaayo haddii ay tahay ama kuwa cuntada laga helayo kale ay tahay haddii aa qaadanaynin oo gaajana miisaanka iskaga dhimaysid aad iyo aad ay u dhib badan tahay berito dhibaato aad iyo aad u weyn aa kugu imaan karaa insha allah marka waxaan leeyahay adoo miisaankaaga dhimaayo cuntadaada waa inay
dheelitirnaataa mar walba dhinac walba inay ka dheelitirnaataa insha allah waxyaaba borotiinaadka laga helayo inaad joojisid maahan dad qaar waxaa jirta yani ama fruits keligiisa isku caateena dhahayo ama muxuu ahaa tufaax keligiisa isku caateena taasna macquul ma noqonaysa insha allah mar walba waxaa fiican jimicsiga iyo cuntada inaad isla wadid haddii aad rabtid jirkaaga inuu ku qurux badnaado waa inaad intaas aad samaysaa haddii kale berita waxaa kugu dhacaya in aqaliin aad sababsatid waa haddaa lacagteeda aaysid waa haddaada haysanina adigoo saas muxuu ahaaye jirkaagii oo hargaharga u yahay oo asaga dhan oo u bahdalan yahay dharkaaga ku gashanaysaa 120 laalaab oo kala noocnooca kaa soo jeedaya marka taasna waa muxuu ahaaye mid aad iyo aad u xun waa berita adna waa ka shalaynaysaa mana ku ahan yani stylena ma ku noqonin jirkaagina sidii hore waa kasoo tagtay oo ma u laaban kartid sidii aad rabtayna ma gaarin yani meel cidlaa muxuu ahaay aad dhex taagantaha marka waxaa idin leeyahay walaalayga qaaliga ah sidaan hore idinkugu sheegay mar walba waxa aad samaynaysid waa inay israacsanaadaan haddii aysan israacsanaanin oo hal shay aad samaynaysid dhib aa berita kugu imaanayo dhibkaasna ma ka hortagi kartid xilli aa markaas aa dhexgashay ma ka hortagi kartid laakiinse marka ugu horeysa waa inaa adiga aa niyadaada aa gelisaa oo aa raadisaa wax walbo aa fiirisaa meel walba aa kasoo fiirisaa kadib aa isku keensid aa isku jimicsatid oo kadib sidii aa ku wada samaysid insha allah marka waxaan jeclahay jirka waxa lagu adkeenayo waa jimicsiga jirkaaga waxa adkeenayo waa jimicsiga hadda idin sheegaa هاي يعني ين إذا كانوا قن حل يعني أو وحلا قبل كرن أو جرك لنا محوها هاي أكب حسين محوها هاي وحي مركز أو فات هاي برورت أكب حسين إلى المقار كليس قرب يكون قادنا أنتوا السوء كيناي وأمي مدة بدن أديك يعني وكني جبسة تاد كلا داس ومالنا أنا وحاجعلنا وحن محوها هاي وبطننا هديته بالإنا وحول بأنا أكو جارنا taasna muku noqonaysa bilna jir noocaas noqday muku soo adkeyn kartid yani een stylna muku noqon kartid ilaa iyo ina qalin ah ku sameeysto oo hilbaas laga bixiyo la isku keen la isku toltolo oo sidii qof dhuuban lagaaga dhigo moogeel marka waxaan jecelahay in videogan maanta aad iyo aad uga faa'iidi doontiin dad badan uga faa'iidi doonaan insha Allah aan mar walba waxaan jecelahay runta iyo waxa saxda ah iyo waxa xaqiiqda ina idin kala hadlo insha Allah waxa soo wada videoyaal kale oo muhiim ah insha Allah oo waxyaabo badan oo la cabayo oo idin ka caawin doona dhanka caloosha insha Allah maadaama sanjabiil iyo waxyaabahaas soo gelin jira hadda insha Allah noona soo daceeya aniga iyo muxuu ahay wiilkayga inuu ilaahayna caafiyo insha Allah caafimaad taamana siiyo hadduu asaga iyo caafimaad aniga mar walba weynaysiin waa idin soo fadhiisana haddii wax video caadi oo yahay ama haddii hor fadhiis ee taw yani idin soo hor fadhiisanayo mar walba waa idin maana laakiin haddii oo cunug yariiska oo iga xanuunsan yahay yani dabcan hooya ahay ma sameyn kartaas marka insha Allah walaalay qaali ah soo jeedin ani xitaa isbedel aad iyo aad weyn muxuu ahay iga muuqdo maalmahan inta cunuga murugtiisi xanuunkii wixii oo dhan marka insha Allah inta xanuunsan ilaahay ha wada caafiyo saqiir iyo kabiir inta ilmaha ka xanuunsan inta ay ka xanuunsan waalidiinta dhammaan Allah wada caafiyaan leeyahay waana maadsantihiin tan kale inta fruitska da idin sheegay fruitska oo miisaanka lagu dhimo kuwa ugu fiican waa noocan saa u jeedin waa kana noocyada saa isticmaalaysiin aad iyo aad u fiican yihiin sokor badan ma loo sokortooda aad iyo aad u yar yihiin dhanaanay leeyihiin ma fahanteen sokor ma loo laakiinse kuwan kale inta haddii ay isticmaalaysid ha iska badina haddii ay noqoto hal shay inaad ka isticmaashid waa ma badsan kartid sida kan oo kale oo badsan kartid kaas ma badsan kartid insha Allah marka waxaan jeclahay inaad taasna idinka soo jawaabay oo waxaan isdhaa walaalo badan oo soo weydiinaa jirta fruitska hadaa badsano sidee waay fruitska ku ugu fiican noocan waa marka miisaanka aad dhimaysid insha Allah waxaan jeclahay in muxuu ahaay hadda ka qancadeen jawaabtiina muxuu ahaay idin si insha Allah waana mahadsantiin sida wanaagsan ay la socotiin mar walba waxaan jeclahay inaani idin soo fadhiisto yani ma ahan YouTube balwad ahaan ma ahan laakiin waxa u xiisaabani kommentiyadiina dacooyinkiina intaas waa u xiisaa ma sha Allah aad iyo aad aan idinku xiis meel ba adduunka joogtaan ilaa caafimaad iyo cimri dheer idinku sii inta video mid la mid ah ku kulmi doono waxa idinkaga sii tagaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ballanteena waxay noqon doontaa wax walba inta aadan sameynin marka hore ka fiirsan insha Allah marka inta video mid la mid ah ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh